laftigeed inay gif tahay isla markaas qofkii oo haddana kule war muslin ah walaalo iska kay dhaaf weli gaal la sii daba taagantahay haddii anigu waxaa marka dareemaya meeshaas inuu ajenda jiro oo adiga diinta aysan ahaynba waxa meesha u joogtid qorshe kale uu jiro aniga taasa aaminsanahay hadalka markii uu ninkan odayga uu galo ololo mudi galo arkay ereyga aad rabin waxaa leedahay war aniga ma rabi AJ inaan qofka la hadla ma rabi horay haddii ba hadalka ka hadli ka heli weydidbu inaan la hadla ma rabi hadalkan marka wallaahi kullaahi waay wax naf la dareemaan cabdiraxmaan dilbo hadli kartaa walaalkay okay assalaamu calaykum dhamaan walaalaha wasalaamay insha allahu tacaala walaalkay hadda hadalkiisu u dambeeyey wuxuu yidhi haddii wax caddeyn ah la igu haayo hala soo bandhigo waxaan rajaynaa in qof aqoon-yahana uu yahay dulqaadna uu u yeelan doono Somali Cowboy aniga shakhsi uma haysto waxa lagu haystana waa wax quseeya diinta islaamka arrin qusaysa waaye walaalkaana asagay u fiican tahay maanta inaan u naseexayno si diintiisu ay ugu badbaado waxyaabaha khaladaadka ah oo galay in halkan la soo bandhigo la soo cadeeyo maadaama uu yiri cadeyn hadii la haayo uma baahan ninkan wuxuu yiri hadalkan wixii maxaa u soo noqonaysaa marka yiri horta ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri yaa ayuha alladina aamanu قو أنفسكم يا بلاد رعد كل جيسنا اسمه عبد الرحمن عدينا ضد أيده ولا صار دين تقول يا أنا نيك مش روسو قال بس وضف جالس موت كعجلة هذا البل هاي موت كعجلة يا عبد الرحمن كلمة أنا هني كان كلمة أنا يكون هذا ولا هل مربوط كده اوكي هل كلمه الله waxay u muuqataa dhibaatooyinka jira waxay tahay aniga waa hadlay wixii dhacay oo qalad ahay afis waan eri ninkan walaalkeen runta idin sheegaya Cabdiraxmaan ma aqaano tiktokiisa weligay ma gelin waa igu maqaalo calaamada karishtaanka iyo sawirkayga in la wareejiyo taas ayada dambi ah taas laftarkeeda ayaa dambi ah adigoonan qofka ogeyn wuxuu yahay inaad gaalaysiiso taas horta waa ka cafi hadda ku sheegaya aniga qof ma adag miihi Soomaalinimada ugu weyn calanka ugu weyn waxyaabahan qaladaadka dhacay haduu jiro waay qalad dhacay video hadda tusaalahan muuqaal waxa jiro zoom call ah oo 3 hours waxa soconayo hadaadiya si fiican uga faalooday mar AJ iyo nala joogeen gabadhan Salma aniga waxaan dhihi lahaa qofka ha soo wada daawado muuqaalkaas hadaa qalad ku aragtid oo wax xun oo fool xun ay yihiin oo adiga ma aaminsan aniga AJ oo sheeg waxa iri ilaahay shaki ma gelin female iman waxa meelaha la orday waa been nabiyada qof hada aniga hada diinta barnaay ma ihi AJ hada sheegay Quraan Kariimka maradimi oo ku naqteen magaalada soo koray 100% community muslima waalid muslima ummad muslina ayaan ku soo dhax koray saas ay tahay dadka ugu sharafta badan ugu karaamada badan marka diinta islaamka la fiiriyo qaarkood ayaa qalad galay marka haddeertaan ani uma saarin AJ meeshiis in qof la murmo gaalnimada iyo ereyga iyo wixii socdaad enough saddexdii maalin ugu dambeysay ayaa wixii aan maaragtay dambi dhacay balaayo dhacday qofkii qof dambi ka waxaas oo dhan meesha ha nooga ekaata ani taageeray hadalkaadu ku xiran yahay wadaadka anaa dejiyey dhalinyarada kale taqaata anaa wadaadkaas dejiyey anu waa teganaa walaalka hal erayaa dhaha wadaadka kitabkeena horta waa garanaysaan diinta khasab ma ahan iyo in dadka lagu fogeeyo bini aadankana waa garanaysaan kullu bani aadama khataa'iin wa khayr al-khataa'iin at-tawaabuun bini aadanka dhan waa kafa laakiin kuwa kafa kuwooda ugu khayrka badan waa kuwa Allah u soo laabto qof kule Allah u soo laabtay hadduu ka fiiga dhacay inuu cid raali kaliyo uma baahna walaalkan kaliya inuu ilaahayga abuurtay raali kaliyo u baahan yahay annaga dhan inuu raali kaliyo noogama baahnin wax raali kalina kuma lihin Allah subxaanahu wa ta'aala inuu raali kaliyo oo dhaho hatiiba la ituhumay oo waxa weeye public la keenay fiidiyoyo aan dad isaga celinayo oo ka fiiga dhacaya public intuu soo istaago inuu dhaho Allah subxaanahu wa ta'aala sidoo uu ashaatay wuuna sameeyay uu tawxiidkana qiro ودو walaalyaalo ay tuhumina qof muslim ah wixii ka soo haro qofkii dhaw qofkaas muslimka ashaatay waa kaal waxa weeye anaga taahirka xukuminayna kaalnimadaasna dhulka ma dhacaysee qof kala taagan qof muslim waa kaal asaga un bay ku laabanaysaa marka waa si salaama kuulista sidoo kale bo thank you so much walaalkay qaaliga aqliyasan oo ajiib ah ma qaadan karaa AJ shibana ku soo cadeer
ku salaamaya AJ Somali Cabo iyo Silmo iyo dadka hoose waa salaamaya ni horta waxaan rabaa anigu dadka inaan u sheego walaalka Cabdi Iftiin meesha saaran wax walba oo tuhuna iyo cajaladii socday iyo mawduucyadii baryahan dhaweytay gaalaysiinta iyo dadkii su'aalaha qabay uu ka jaal saaray dadku bini aadan way dadku waa khaldami karaan hadalla waa ka dhici karaa waxa fiican wixii baastiga waa wax tagay weey qof walba hadii la soo baaro backgroundkiisa 10 sano u dambeysay 9 sano u dambeysay oo loo tixraaco qof walba khaladaad iyo wax waa laga soo helaya marka waxaan anagu hadda xukminaynaa waxa weeye waa intuu hadda ka hadlaayo iyo intuu niiri iyo wuxuu hadda aaminsan yahay iyo waxa uu hadda qaba weey dad marka waxa jira xanuunsan oo qofka wixii baastiga ahaa ee shalay iyo wax ka tagay khaladaadkiisa dambe baaraya oo check up ku sameynaya waxaan rabaa anigu inaan ku dhaho anaga dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan nahay waa ku taageersanahay horay u soco qadiyada Ethiopia iyo Soomaaliya iyo qaabka uga hadashid baa waxa weeye waa kugu taageersanahay garabkaagana waxaa kaloo la yaabay ninkan dhalinyarada ah diin kama hadlaaso oo wadaad ma aha waxa uu ka hadlay qadiyad wadaninimo ah weeye oo Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxaysa weeye hadduu lacala de arrimo diin ka leh arrimo diin waaba ku qabsan lahaynba laakiin qadiyad diiniga kama hadlaba markii waxa la yiri Soomaalidu markaad geela loo heeso dad ba ariga u hees ninka arrimo diin iyo wax la mid ah hadduu ka hadlaa xitaa xagga diinta waan ku riixi lahay laakiin qadiyada uu ka hadlo waxa weeye qadiyo Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxaysa waa wadaninimo ka hadla marka waxa fiican qofka meesha uu ka hadlo in laga doodo hadduu qadiyadii wadaniga uu ka hadlayay aan ku aragno waxyaalaha khaldan inuu ka sheegayo ama si khaldan uga hadlayo marka waa ku qabsan karnaa mustaqbalka soo socda saas araba horta inaan sheego ninkii dhalinyarada ay halkan ka dagayna Cabdiraxmaan Dilimna waxba iga raacay niyo ninkaas iyo de gruuba lamida waxay sameeyaan dadkii social media ku jiray Soomaalida oo dhan diinta ka wada saareen habeen walba qolba u furan habeen walba qof muslim ah oo TikTok jooga kristaan loo xirayaa diinta laga saaraya wadaadada Soomaalida ah ee la yaqaano anaga sheekhyada u naqaano Sheekh Mustafa le Sheekh Dirle Sheekh Umul waxay ku kala faanaan intaas oo qof aan diinta islaamka soo dara oo recordkaas ay intaas qof laakiin nimankan Cabdiraxmaan ugu horeeyay halkan waxay iskugu faanaan intaas oo qof aan diinta islaamka ka saara marka nimanka dhibaato noocaas ah habeen walba qof islaami diinta ka sii saaraya diintii wax minus bay ka sii dhigaya arikaas jira dhibkaas haysta garamay waxay ka faa'iidayaan marka waxa ay ka faa'iidayaan iyo yoolkooda iyo halka u socdaan wadaadadan hadda dhalinyaradan meelahan wadaadada sheegtaan waa fahmi waay marka waxaan rabaa Cabdi Iftiin inaan ku dhawaano oo ku taageersanahay qadiyada Soomaalida iyo Ethiopia iyo Oromada iyo qaabka uga hadashada iyo dhalinyarada soo baraarujisnayo aanu garabkaaga ahay horay soo ciyaal xaafadda waa ku taageersayiin saaxiib guulaysan ku leenahay inna ha u joojin qof walba oo Soomaali iyo horumar gaar waxay isku dayaysaa Soomaalidu ama wax ka hadla in dhulka la soo dhigo cagaha lagu dhigoyaa marka annaga ku taageersanahay horay soconayo madaxaaga korniyo inna hu joojin insha Allah labada hoos maxkamadda ku soco wadi maqlay samal malay assalaamu alaykum dhamaantiba afsoomaaligiisna afsoomaal waxa waaye waaweynka waa ku soo maxkamadda anigu oday weyn baan ayaa waan salaamay horta assalaamu alaykum dhamaantiin wa alaykum salaam niyo yarka Somali Cowboy anigu aqoon u malihi oday weyn baan ahay laakiin barnaamijkiisa waa la ii soo diray kama hadlin kuma degdegin qof islaama inaan ku degdego waan diiday laakiin midun baan idin sheegayaa qadiyada Soomaalinimada iyo wadannimada iyo waxa ka weyn hooda diinta islaamka lambar 1 Cabdiraxmaan oo halkan ka degay wax shakhsiyan yarka uma haysto su'aalaha wuxuu ka weydiinaya diinteena islaamka ahayd maadaama dad islaam aynu nahay waxba la iska weydiin karaa ceebna ma aha inaad qofka waxa weeye su'aaluhu qabay aad ku celiso oo amaad xurnimada ka qaataan ma fiicna qof Soomaaliya oo shakhsiyan aanu hadligin laakiin diintiisii de u hadlayay diinteena islaamka u hadlayay inaad dhageysataan baa ahayd taasi waa taa mid kale horta qofka bilaadanku isagu qofna qof diinta kama saari karo qofku isaga iska saara diinta isaga ka baxa diinta Ilaahay baa iska leh shakhsi ma laha taa walaalkay Soomaaliba waxaan leeyahay
anigu sheekadaada waan maqlay kuma degdegin qof sheekhna ma yihi laakiin arrimaha marka wax lagu soo diro inaad iska hubisaa wacan degdegna kale waa camal shaydaan weeye haddii aad qof muslina tahay kolley qof wiil dhalinyaro baa tahay walaalkay baa tahay hore u socbaan ku leenahay laakiin mar walba diinteena islaamku lambar wana ha ahaato silmana waxaan leeyahay aayaduhu soo daliishanaya markaad leedahay aayadda waxa weeye waa quraan waa kalaam allah wey inaad ixtiraamto oo quraankaad ixtiraamto oo diinteena ixtiraamto waa kugu waajib maadaama qof islaamaa tahay intaas waa iga talo Soomaaliya AJ family de saxaab baynu nahay dadku markay meeshaada ku yimaadaan ugaas ixtiraam aniga adiga hadalkaaga ku sadalka laga ma dhaxgalin waa loo ixtiraam kale taa kaalisa waa kee maya marka qofku uu ku yimaado inaad dadka ixtiraamtaan oo aad tuurtaan ma fiicna inaad dhageysataan haddii wax xun qofku ku hadlo waad tuuri kartaa qofka martida iyo aniga oo waliba legend ah oo yiri aniga qof wixii walba oo dhacay maarto ka toobad keenada wax kala dhahay qof walba hay cafiyo qof walba waa cafiyay wixii dhacay loo soo faago waa qalad marka inaad ergacleen maxkamadda aniga adiga laba qof oo saaxiib aan nahay inoolow waanadaadan waa qaadanay waad maasantaa walaalkay qaaliga ah aad baa idin salaamaya ugaas sidoo kale walaalkay horta ninka la yiraahdo Somali Cowboy horta TikTok waa kana oo ujeedaa welcome to TikTok again aan ku leeyahay welcome to TikTok profoundly welcome to TikTok ما هو حاول هذا أنكو أركا أنا أركو سعودة أنا Soomaali iskala laadina dhib isaga sina hal qodob baan rabaa inaan yarkii maxkamadda hadda aan ka dhaho AJ laakiin dhamayso halkaan laakiin meesha xitaa marka AJ waa ku salaam waxaan jeclaalahay aad adinku waa wada fadhidiin laakiin waxay rabnaa Jaanis Hamar ii siida maadaama aanu marti ahay inaan baxana aad u dhowda okay waxay leeyahay isugu halkay hadalka ku siinaya waxa rasuul dadka meesha u buuxiyeen ninka la yiraahdo Somali Cowboy marka aad Soomaali tahay oo rabdi korina aadid horta dhalinyaro ku taageeran dhalinyarada way kugu dhagaayaan ay rabaan meesha joogaan inay ku fadhiisiyaan aniga TikTok ay xamra ah waqta umleena qof kasto Soomaali ana wuxuu yahay equal yahay gabadhan shalay walaashay markii lagu soo tagay waa u heeliyay waxa ugu heeliyay Soomaalinimo la ilaaha illa Allah Muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam gabar walaashay marwa ah ayadoo diintii liido ka baxday muslimatiid ha u wadaadaan keenay wadaadada yiri waa u jeedaa maanta inay madaxeeda xiran yahay ee sharaf nagula joogto forever walaalana in as dagaal is qabsana laga ma yaabo qofka bini'aadamku markuu la jin yahay oo qof fiican hore u socday waa qaanaano u heliya wiilka haddadan waxa maanta dhan gari aad halisay waxa soo keentay qaladaan gal Ilaahay subhanahu wa ta'ala afi Soomaaliya anigana waa kana walaalkiina ahay hore u socona cadawga la dagaalamo wixii hore marka wixii aniga hadda daama dhahay aniga walaalayaal way cafiya Soomaaliyeey wax aniga wax hore dhacay lagu keenay maxay tahay hadda ay maheen wax kala samoogid wiilkaas marka waxa uu soo saaray waxay ahayd inuu ku dhaawniyo waa ku maqlay waxaad ku hadashay nin walaalkay aad tahay walaalo macaan dadka Itoobiyaanka aniga xataa waa dhibcay dadka wadankeena ku dagaalsan walaalo hore u soconay laakiin maadaama uu rabo inuu wax soo faago aniga markaas aniga asaga waa ku kala baxay anina ciyaalka xaafadda ay ogta umana saaxiibo عيال وحنا مركي سكولي ده أنا أقول كعلك بنانك تأسيس استاذ سراسة بيار جن تاتجنو أنا كعلك على كوست كل شو أحسن نيجرني قف سوعة يومي استاجي برجع رجع تذكر مودك المقدار ذي أمريكا سوعة كحنا كان أنا مودك كأجر يعملوا كل هاللاي عيال الحمراء كنت غيران صومالي كنت غيران ولكن أنا توقتي كمدمنيني بزنس كقبصو هوش هذا قبصو أنا تيك توك زمان وكنت غير أكون فديا هل ملين ازداد بقولك كن أو قفن كولا فديا oo inta ah 2,200,000 milyan halkan kugu fadhiya aan dhahe milyan oo kugu fadhiya TikTok hadii la dhaho maanta qof iga la dheereysan TikTok keen Soomaalinimo iga la dheereysan habi halkaas uu yahay ma baande walaalkay waa ku wataa hadal ma ku dhiman anaga su'aal kuma weydiin dambe su'aali waa naga dhamaadeen aad horta waxa rabaa inaan dhaho yes caayda iyo aflagaadadii inta badan dadka xanaaq way jiraan anaga ciyaal xamaranahay waxaas waa ka gudubnaa hal kelmad aan rabay inaan ku darsado kelmadaas oo ah horta dadka gaalaysiiyo aniga way igu dhacday dad iga horeeyay dad iga dambeyn doona taas waa hubaal dadka gaalaysiiyo nimayaho ummadda ma matashaan ajenda kala wadataan maxaa yeelay diinta islaamka waa diin nasteexo iidaabana tiriba idinka waxaa ka dhigaysaan diin argagaxa ka dhigaysaan wax firi tusaale ahaan hadda maalan
qof hadduu ku soo hor istaago had Soomaaliya waxa jirto toos gaal ahay ku dhehaysa jirto wixii qaadatay qofkaas wuxuu ka mudan yahay ina sawirkiisa iblaayis suuqayta wareejisid bis wuxuu ka mudan yahay ina qofkaas istaraatiijiyo kale ah u limaatid si qofkaas ku kasban leed qulubtiis nasteexada lagu sheegaa waa midaas mid labaad raba inaan ku daro midaas oo ah wadaadada dhamar raba inaan faarado wada laakiin kuwa hadda مثلا عبد الرحمن waxa maqlay sawirkii uu soo qaatay calaamad Krishtaanka la soo dul saaray energy galay waqti galay life ala soo koray waa la murmay waa la hadlay walaalow shakadan waa dhamaatay energy-gan awdiin hal geliyo la dagaalanka cadawga Etoobiyaanka ah hal qof diintiisa iyo balaayadiisa iska dib ordaysa dal dhan laga qaadanaya oo dalka hadii la qaato oo cadawgu soo gala taasoo macnaheedu uu yahay hadda ummadda soo dhamaatay marka aqliga ha shaqeeyo doqonnimadan iyo muxuu ahaa waxaan maanta oo dhan qofkan laga fiirinayo kaliya hadda ani waxa aaminsanahay dadka qaar wadaadada sheegto inay dadka negativity kaliya ka raadiyaan ani aaminsanahay tusaale yar ku siina Soomaaliya boy aniga ahay 9 bil Etoobiyaanka la dagaalamay dhinac walba ka galay xitaa diintooda waa soo fahmay Soomaa hal mar ina meel soo fariistay islaamnimada shaki ma gelinin waxa ka hadlayaa kaliya ka soo qaad 9 bil hadda ugu dambeysay mugta qof soo qaadanayo wanaagaas difaaca dalka fiiri Etoobiyaanka in la dagaalamo ciyaar ma hadda ciyaar u malay waa halis weyn waay waxa aniga duruuf igu kaliftay 5 more cameras inaan guriga ku xiro dadka ma fahansano sheekada markaa bilaabay oo aan ogaaday inaa cadow public noqday oo dalkayga difaacayo heer waxaa gaari nafsideeda u boqo markaa joogna waa ognahay qoryaal la wada wataa laakiin waa isku kaami waa lagu mishimi karaa weli fursadaas way banaan tahay mugt qofku dhahayo ninkan dalkeenu yani muxuu ahaa u dhabar adeegay ama nafsidiisa halis u geliyay qofku dhahaya ma leh muqaal 8 years ago soo qaatay maxaa lahaa AJ hal mid arab inaa ka hadlo walaalo maanta dhan aslaha maxaa hilmaamsan tahay organization waxaa jiro church world service ee dhahan oo Xuseen galiftiis uu soo qaatay uu leeyahay waa gaal kuwaas oo shaqeeya dadka waxaa lagu gaadaa Afrika joogo Soomaaliya joogo dibadaan markaa soo gashid waxaan waa non profits magac gaal haska wataan like waa non profit mafahant hadday ku dhahaan kaalay qaybta editing wax noo qor blog noo samee waxyaalahaas ku dhahaan dambi ma aadan gelin inta badan iyaga waxyaabaha serviceka dad ummado kala duwan kala diin weli waxa u badan dadka resettlement ay u sameeyaan waa resettlement agents dadka yaqaano hay'adaha dadka soo dhoofiyo Soomaalida 99.9 waxay ku imaadeen Catholic Charity-ga dadka marka waa lagu qiyaanaa waxa leeyahay balfiiri magaca Church America ku qoran waa wareega blog u qoray lagu leeyahay blog markay akhriyaan haddii akhrin lahayn wax fahminaa iska fiicnaa lahayd meesha waxa ku qoran ciid iyo qaabka u ciiday iyo dhalinyaradii iyo baashaalkii iyo xalwadii iyo buskudkii blogga ka helaysaa website-kooda markay gashid ma wax xun mise wax fiican diiniyan waa wax fiican maxaa yeelay ummad dhan oo diintaada aanan haysanin aa usoo bandhigaysaa diintaada meeshii la rabay in wanaag laga dhigo isla marka tuustana lagu sameeyey magacaas kaniisadda Soomaalida ee ka argagaxdo iyo waxa la isag dhigay magacii Java gaala ka soo dhaxbaxay that's unfortunate mugtay waxa laga yaabaa dadkaas sameynaayo inay og yihiin oo on purpose ay u sameynayaan weli muuqaaladaas way ku jiraan TikTok-yada waa ka heli kartaa dadka marka taas inay fahmaan muxuu aniga bal ila fiicnaan lahayd